arintii ajaanib naciibka ninkii ka horeeyay Donald J Trump madaxweynuhu marka arintii dib ayuu uga laabtay oo 3 bishan ayuu marka la qoraal soo saaray oo wuxuu yiri waxaan u daaynayaa tirada 62,500 tiradii la rabay ugu dambeyn 3 September physical year wax la yiraahdo 3 September uu ku eg yahay in qaxootiga ugu dambeeyay tirada loogu talagalay Mareykanka iyo yimaadaan sanadkan waa 930keeda marka madaxweynuhu wuxuu yiri 62,000 oo markii hore aan qorsheynay 500 ayaan keeni doonaa marka hay'adaha u dooda hadda in arrimaha qaxootiga waxa ay leeyihiin ma malaynayno sida hadda muuqata saasaanka muuqda in tiradaasi Mareykanka ay imaan karto marka loo eego tirada iyo xilliga kooban oo la Cabdiraxmaan ilaa hadda 2,500 oo qaxootiga la leeyahay Mareykanka yimid ilaa iyo hadda tirada la hayo tani intuu madaxweynuhu xilka qabtay oo ku dhawaaqay waxyaraadii qaaday in markuu xilka la wareegay 20 January sababaha marka hay'ad u dooda arrimaha qaxootiga waxay leeyihiin iyadoo la eegayo waqtiga yaraantiisa waxaan qiyaasi karnaa ay leeyihiin 10 ilaa 15,000 in ay wadanka imaan karaan sida hadda ay qiyaasta iyagu ay leeyihiin soo daa macnaheedu tiradii hore dib ugu noqonaysa marka arintaasi ayaa waxay tahay arinta muranka weyn dhalinaysa inkastoo hadda wararka aan ka helayo dad badan oo igu xiran dhinaca YouTube-kayga ay leeyihiin waxa laga yaabaa in 25 bishan dad badan hal mar caafimaadkii loo waco oo la soo qaado waliba iyadoo aysan jiri doonin dadkaas in horey digniin loo siiyay laakiin si random ah dad fara badan oo qaxootiyada xariyaha kala duwan ku jira in inta la yiraahdo maalin hebel caafimaad u imaada haddana si degdeg ah lagu soo qaado marka waxaad ka wadaa waxay hay'adaha dadkan soo qaaday ka faa'iideysanayaan xilliga kooban ay haystaan iyo ogolaanshaha dawladdu ay siisay marka waxa laga yaabaa bil ay qorshahooda inay soo qaadaan 2,000 inay soo qaadaan 5,000 oo qof si ay tirada u soo badiyaan marka walaacu halkaas uu ka imaanaya maadaama hadda May ay dhamaad ay ku dhowdahay Septemberna ay dhowdahay Septemberna hadda ay June iyo July August iyo September 4 bilood ay dhiman tahay marka 4 bilood iyo tiradan oo hadda 2,500 ay timid 62,500 na loo yahay almost 60,000 numberku marka number iskeenaya ma ahan arintaas ayaa waxay tahay marka sababta walaaca la muujinayo madaxweynuhuna maalintii qoraalkan uu soo saarayay waxa kamid ah hadalkiisa waxaan aan ka shakisanahay oo aan u maleynayaa in tiradan 62,000 waqtiga loogu talagalo September aysan wadanka imaan karin hada qoraalkiisa ayay qayb ka ah waa gartay innaga waxba inoo daran nin walba waxa la yiri meeshii bugtay isagay balashaan Soomaalideena ma ku jirtaa dadkan qaxootiga la soo qaaday waa ku jiraan oo qaxootigu inta badan waxay ka imaanayaan xariyaha qaxootiga ee kala duwan oo Mareykanku sidaan ognahay 41 sano ee ugu dambeysay waxa uu ahaa wadanka ugu badan ee qaata caalamka qaxootiga marka 4 sano Trump hayay meeshii ugu hooseysay ayay gaartay waliba waxa yimid la leeyahay 11,000 oo kaliya hadda sanadkii u dambeeyay 800 marka laga reebo waxyaabaha emergency ahaan dad loo keenay marka Soomaali badan ayaa aan filaynaa inay ka faa'iideysan doonaan oo ku kala nool South Africa iyo waliba Uganda Kenya Ethiopia meel badan inay ka faa'iideysan doonaan sida la filayana bisha June horaanta bisha June waxaan filayaa dad badan inay ka faa'iideysan doonaan oo dhamaadka bishan caafimaadka la filayo in la marsiyo ugu yaraan 25 ayaa la leeyahay in caafimaadka loogu wici doono bishan aynu ku jirno horaanta bisha soo socotana in la soo qaado ay u badan tahay warkaasi wanaagsan waxaan jecelahay dad fara badan oo dhiilahayso inteena gudaheena joogay dibadda inuu ka farxin doono warka farxadda leh ee ku saabsan qaxoontiga Soomaalida la soo qaadi doono ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena arrimaha Mareykanka waxa ila joogay maanta oo aan marti dhanka haatufka ama telefoonka aan ka hayn saaxiibkay Cilmi Maxamed Waare alaaba waxaad maqli jirteen anoo dhahay Cilmi soo dhawow oo ka soo dhaweynaya gobolka Indiana gaar ahaan magaalada Indianapolis oo masaafo naga foga laakiin maanta garabkayga midig ayuu fadhiyaa farxad bayna ii tahay inaan waraysigan si live ah oo wada jira anagoo miiska wadaagayna aan u qaado tan intaynu ku kulmi doono barnaamijka arrimaha Mareykanka aniga iyo Cilmi Maxamed Waare si wada jira waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo